laba daraadle dadka Soomaalida dhulkooda calanka buluuga xidiga bartamaha u yeelo la saaray misla waxa ay sii wadeen sidii ay u gaari lahaayeen gobonimada dhabta ee runta xaaji maxamed gobdoon xoolo lama imaan xamar xoogsi lacageedna kama uusan bilaabin wuxuu ahaa nin naftiisa u soo xiray waxbarasho oo keliya wax kalena aan u jeedin una bareeray inuu foolkafool u qaabilo wixii dhib ah ee ka soo gaara jihaadka waxbarasho buuggani wuxuu ka hadlayaa sooyaalkii taariikheed ee allah u naxariistay xaaji maxamed gobdoon magaca buugga waa agoonkii cabsida alle dugsaday waxaana qoray cabdi xaaji maxamed gobdoon oo ah wiil uu dhalay xaaji maxamed gobdoon aniguna waxaan nahay abuukar xaaji gobdoon intii aan barnaamijkan ku guda jirno waxaana si faahfaahsan uga sheekayn doonnaa taariikhdii iyo sooyaalkii saxaafadeed ee rugcadaagii weynaa ee Soomaaliyeed cabdi xaaji gobdoon konton sano waxaa u dheer 3 inta uu dhex jibaaxayay aqoonta warbaahinta aan saqafka lahayn maamulkeedana waxa uu ka gaaray darajooyinka ugu sarreeya uu gaaro qof han iyo himilo saxaafadeed leh wariyaha gaarka ee madaxtooyada agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta wariye caalamiya oo u shaqeeya Radio Moscow xeeldheere hodan ku ah afka iyo dhaqanka bara sare oo saxaafadeed iyo ilays ay dugsadaan dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed cabdi anigu waxaan dheelahay haddaan dib u fiiriyo markuu geeriyooday qoraal yar ayaan ka sameeyay allah u naxariistay dadka commentiga ka bixiyo waxaa ka mid ah ninka aqoon-yahanka ah oo isaguna wariye weyn ahaa laakiin inta badan maamulka caanku ah telefishinka qaranka madaxda ka mid ah warfaafinta waa ninka la yiraahdo Yuusuf Maxamed Xayd qoraana ah Yuusuf Maxamed Xayd commentigu bixiyo waxaa ka mid ahaa 60 markii la midoobay Soomaaliya in uu cabdi hormuud ka ahaa raggii luqadda mideeyay oo fariisiyay luqadda warfaafinta Soomaalida oo dhan ay isticmaasho oo hadda iyadoo si horumartay aan hadda haysano raggii dejiyay inuu ka mid ahaa marka qodobkaas waa qodob aad iyo aad muhiim ah labadii gobol ee midoobay amaba xataa luqaddii idaacaduhu markay bilaabanayeen luqad professional ah kuma bilaaban sheeko idaacadda Hargeysa ugu horeysay raad Muqdisho ku xigtay waxay ku bilaabatay qaab oo hadal iska caadi ah oo raggii warfaafinta aan ku gaaray ay ka sheekeyn jireen sidii ariyada ay ku bilaabatay raadiyo Hargeysana waa la sheegay sidoo ku bilowday iyo arrimo maaragtay xataa qaab ay uga warrameen shil dhalinyaro yar oo football ciyaareysay oo mid bir uu qabsaday la soo gooday qaabkay uga sheekeeyeen raadiyo Muqdishona raggii ku murmay ku dooday markii kelmadda halkan waa raadiyo Muqdisho la keenay ka hor erayadii lagu taliyay iyo doodii ka dhacday ilaa aakhirkii laga yimid halkan waa raadiyo Muqdisho marka waxaan waxa iska dhashay maaha oo wax rag ka soo shaqeeyay raggaasna waxa ka mid ah dhamaantood ilaahay ajra ka siiyo waxa ka mid ah cabdi xaaji gobdoon marka bilowgaas dhalashadii ah ayuu la soo bilaabay cabdiraxmaan xaaji maxamed gobdoon ruugcadaagii saxaafadda Soomaaliyeed waxa uu ku dhashay magaalada Jigjiga sanadku markuu ahaa 1938 isagoo la kowsaday halgankii xornimadoonka Soomaaliyeed ee isu soo tarayay waagaasi cabdi oo ku soo barbaaray guri gobonimadoon oo geed fadhi u ah halgankii xorriyadda dalkeenna ayaa durbadiima markii uu tamajirsaday waxa uu ku biiray macad ay aasaaseen dhalinyaradii SYL judhiiba waxaa ka muuqatay hanaqaadnimo isagoo la soo baxay isxilqaan dheeraad ah oo aad moodo inuu da'diisa ka madax taagan yahay garashadiisa iyo mas'uuliyaddiisa waxaa ku dheehnaa midab wadaniyadeed oo daboolaya da'diisa yar ilaa sumal baraar kuma jire markuu da'da jirsaday 19 sano waxa uu bilaabay inuu qayb ka noqdo dadaaladii waxbaridda da'yarta Soomaaliyeed isagoo macallin noqday sanadku markuu ahaa 1957 oo aabbayaasheenii xornimada ay dareensanaayeen in dabargoynta jahligu ay furo u tahay guusha xornimada
iyo hanaqaadka dadkeenna Soomaaliyeed. Allah u naxariiste Cabdi Xaaji Maxamed Gobdoon isagoo bidhaansanaya saxaafad jaceylkii aabihii Xaaji Maxamed Gobdoon ayaa sanadkii 1961 waxaa loo qaatay inuu ka mid noqdo wariyaashii raadiyo Muqdisho. muddo 2 sano kadib dadaal uu sameeyay Cabdi waxay madaxdii raadiyo Muqdisho Cabdi ay u xusheen in uu ka mid noqdo howlwadeenno markaasi lagu furayay laantii afka Soomaaliga ee raadiyo Moscow. arrintaani oo qayb ka ahayd xiriirkii aad u soo wanaagsanaanayay ee dawladdii Soomaaliya kala dhaxeeyay dalkii la oran jiray Midowga Sofiyeeti iyo guud ahaan gaashaanbuurtii Weerso. Allah u naxariistay Cabdi Xaaji Gobdoon waxa uu ka mid ahaa raggii 60meeyadii ku biiray wasaaraddii warfaafinta ka horna ahaa macallin iskuulka lagu magacaabo SYL ee magaalada Muqdisho. wax yar kadib waxa uu fursad u helay inuu tago Radio Moscow oo markaa af Soomaaligii uu bilaabanayay taasoo iyada lafteedu ka qayb ahayd taariikhdiisa marka la fiiriyo. xilliga aan in yar soo garaadsado wali kuraynimada aan ku jiro ayaan waxaan ka dhageysan jiray idaacaddii Radio Moscow la dhihi jiray. sidoo kale wuxuu ka hadli jiray aflaanta dokumentariga oo ah filimada Ruushka oo af Soomaali u tarjumi jiray. marka maqalkiisa iyo maxaan ku yiraahdaa xilligaas igu horeysay wuxuuna ahaa xaqiiqdi dadka aad u soodka macaan dadka codkooda aad u degan yahay dadka codkooda dadku u soo jiito bilxaqiiqa waxaan dhihi karaa waqti hore ayay ahayd laakiin wada shaqaynteeda iyo ismaatikanaga marka la yiraahdo taas xilli dambe ayay ahayd. qurba joognimada Cabdi iyo qowga Ruushka marna ma aysan ilowsiinin dareenkiisii wadaniyadeed ee ku jiray. wuxuuna isku xilqaamay faafinta dhaqanka suuban iyo afkeena Soomaaliyeed isagoo af Soomaaliga baray qaar ka mid ah khubaradii saxaafadeed ee ugu caansanayd Midowga Sofiyeeti sida George Cabges. laba sano kadib markii dawladdii kacaanka ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegeen talada dalka waxaa Cabdi Xaaji Gobdoon ka mid ahaa khubaradii Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabatay si ay doorkooda uga qaataan halganka dawlad dhiska iyo xaqiijinta riyooyinkii ay ku taamayeen dadka Soomaaliyeed. guri ku soo noqoshadii Cabdi Xaaji Gobdoon ee dalka hooyo sanadkii 1970 isla sanadkaasi Cabdi Xaaji Gobdoon waxaa loo magacaabay madaxii warfaafinta ee madaxtooyada iyo wariyihii gaarka ahaa ee madaxweynihii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya. iyadoo taasi ay ka mid tahay xusuusihiisa ugu weynaa iyo sooyaalkiisii laga diiwaangeliyey markii dib loo milicsado codkiisii dahabiga ahaa ee lagu laray aftihanimada ee uu ku tabin jiray wararkii madaxtooyada. muddo 10 sano ah ayuu joogay xafiiska madaxweynaha ahaana codkiisa mid laga sugo raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya. sanadku markuu ahaa 1981 ayaa loo magacaabay agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta halkaasi oo ka hirgeliyay isbeddel muuqda kuna soo kordhiyay hal abuur saxaafadeed iyo qorshayaal horumarineed oo ilaa maanta raadkoodii laga helayo wasaaradda iyo shaqada warbaahinta dawladda. Cabdi Xaaji Gobdoon intii uu ka shaqeynayay wasaaraddii warfaafinta iyo hanuuninta ummadda ee dalka Soomaaliya waxyaabo kala duwan ayuu ku soo kordhiyay marka laga hadlayo ama barnaamijyada ama marka laga hadlayo guud ahaanba horusocodka ee wasaaraddii warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee Soomaaliya. 1970 horaanteedii markii towraddu ay ka dhalatay dalka Soomaaliya 1969 Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay madaxweynihii dalka Soomaaliya waxa uu la kulmay Cabdi Xaaji Gobdoon aabihii Xaaji Maxamed Yuusuf oo ah Xaaji Gobdoon isagoo u sheegay inay la qumanaatay in Cabdi Xaaji Gobdoon uu noqdo wariyaha gaarka ah ee Maxamed Siyaad Barre oo markaa ahaa madaxweynaha dalka Soomaaliya. halka waxaad ka garan kartaa dadka loo xulanayo meelaha muhiimka ah waa dadka loo arkayo inay yihiin dad ka soo bixi kara kaalintaas laga sugayo. ilaa 1981
ayuu ahaa wariyaha gaarka ee madaxweynaha ama madaxtooyada. cabdi xaaji gobdoon waxa uu maxamed siyaad barre la maray waddamo aad u fara badan oo ku yaalla qaaradaha dunida, haddii ay tahay dhinaca waqooyiga Amerika, haddii ay tahay dhinaca Asia, haddii ay tahay dhinaca Afrika iyo qaaradda Yurub. waxaa lagu xusuusanayaa khudbadaha maxamed siyaad barre ee uu meel kasta ka jeediyo ee dalka Soomaaliya gudaha iyo dibadda intii uu la joogay. wuxuu ahaa ninka u sameeyay hordhaca wanaagsan, magacyo kala duwanna bixiyey oo intuba ay ka hadlayaan marka la fiiriyo shaqooyinka isagoo uu qabto. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, allah u naxariistay cabdi xaaji gobdoon isagoo xasuusan jidkii agoonkii cabsida ee badugsaday ayuu waxa uu bilaabay in uu olole u galo sidii loo taabagelin lahaa in raadiyo muqdisho laga baahiyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah. hal abuurkiisa cabdi xaaji gobdoon waxaa ka mid ahaa inuu soo kordhiyey barnaamijka la dhihi jiray tafsiirka qur-aanka xilliguu agaasimaha uu ka ahaa raadiyo muqdisho. waxa uu soo kordhiyey barnaamijka casharka tafsiirka qur-aanka ahaa oo ka bixi jiray 2 waqti ayuu ka bixi jiray raadiyo muqdisho, 10 saac galabtiya iyo 3 saac habeenkii ayuu bixi jiray. waxaana uu soo jeeday oo fikradeeda uu lahaa in uu soo jeedo asna allah u naxariistay sheekh aadan sheekh cabdullaahi oo dadku si aada ugu taxnaayeen oo raadiyo muqdisho marka la yiraahdo aadna looga dhageysan jiray oo dad badan anigu aan ka mid ahaa casharkaasna aan aad u dhageysan jirnay. hal culintiisa kale waxaa ka mid ahayd aadaanka salaada. hadda waa jirtaa idaacadaha ama idaacadda raadiyo muqdisho xilliga salaada duhur iyo casirka maqribka iyo cishaha 4taas xilli subax waxa waaye idaacaddu ma shaqeynaynin 4taas xilli oo kale toos baa maaragtay idaacadda looga soo deyn jiray aadaanka. waxaa kaloo ka mid ahaa masaajidka isbahaysiga oo aan aad uga fogeyn in lagu xiro idaacadda oo salaada jimcaha maalinka marka la tukanayo si toos ah stuudiyaha raadiyo muqdisho looga sii daayo. waxyaabahaas waxay ka mid ahaayeen waxyaabihii hal abuurkiisa ahaa. allah u naxariisto wuxuu ahaa nin runtii saxaafadda meel weyn ka gaaray, saxaafadda Soomaaliya iyo midaas caalamiga ah ee Sovietiga. wuxuuna ahaa shakhsi saxaafadda iyo luqadda iyo diinta oo dhinaca dariiqada suufiyada iyo bulsheynimada xagga sheekada iyo kaftanka iyo doodaha intaba ku dheereeya ayuu ahaa. wuxuu ahaa nin aan dadka iska weynayn. waxaan taas aad u sii bartay markii dowladda dhacday kadib oo aan sida uu ula macaamilayay dad badan oo qaarkood aysan magaalaba joogin markuu isagu madaxweyne ahaa, dad badan oo dariskiisa ah, dad badan oo dhalinyaraha isla macaamilaan, sida uu la dhaqmayay markaan arkay. markii dowladdii burburtay oo dowladnimada Soomaaliya dib loo soo yagleelay iyo xataa ka hor sida uu u facaysanayo ula shaqaysanayo qayb uga ahaa dowlad kasta oo dhalata. beriga caydiidna horta raggii badbaadiyo ka mid ahaa kaydka cajaladaha raadiyo muqdisho oo ahaa kaydka ugu weyn Soomaali meel kastoo joogto, kaydka ugu weyn ee lagu hayo waraysiyo iyo taariikho iyo heeso iyo codad kale iyo xoog fara badan lagu hayay. raggii badbaadiyo ahaa berigii dowladda cabdiqaasim dhalatay ilaa maanta uu geeriyooday allah u naxariistay. dowlad kastoo dhalata ama la taliyo la magacaabay oo madaxtooyada joogu ahaa, ama la taliyo la magacaabay oo warfaafinta joogu ahaa, ama si voluntary ah ayuu warfaafinta ula shaqeynayo oo dhalinyarada kala duwan ee ka shaqeysa aad adinku ka mid tihiin, ama la taliyo u ahaa ama oday uu heliyo oo la joogo maalin walba subax walba usoo shaqo taga ayuu ahaa. marka nin wuxuu ahaa runtii nin dowladeedu ahaa, nin business iyo nolol gaara ka fikira marnaba ma ahayn. dhanka kale cabdi xaaji gobdoon waxaa lagu xasuustaa doorkii uu ka qaatay aasaaskii muuqaalbaahiyaha iyo telefishinka qaranka
oo la hirgeliyey sannadku markuu ahaa 1983 iyo badbaadintii keedka raadiyo muqdisho xilligii burburka isagoo la soo shaqeeyay dhammaan dowladihii la aasaasay carta kadib soona noqday afhayeenkii dowladdii ku meel gaarka ahayd maanta oo la joogo waxaa guul ah in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu magac raaga owgii uu magac daro dhismaha cusub ee xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada oo Cabdi uu barisamaadkii madax ka soo noqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ka duulaya isla markaana tixgelinaya taariikhdii dheerayd ee marxuum Cabdi Xaaji Gobdoon uu ugu soo adeegay qaranka gaar ahaan horumarkii ballaadhnaa muddadii uu shaqeynayay uu ku soo kordhiyay warfaafinta Soomaaliyeed ayaa ugu magac daray dhismaha cusub ee xafiiska warfaafinta madaxtooyada iyo aqalka shirarka ee xafiiska marxuum Cabdi Xaaji Gobdoon oo run ahaantii aad loogu wada xasuusto taariikhdiisii dheerayd ee hodanka ahayd dhinaca warbaahinta waxa uu hore u soo noqday wariyaha gaarka ee madaxtooyada gaar ahaan madaxweynihii jamhuuriyadda ayuu wariye gaar u ahaa muddo 10 sano ah aad iyo aad ayuu arrinta uga soo shaqeeyay ugana soo dhalaalay waana muwaadinkii koobaad ee ugu horeeya loogu magac daro meel ka mid ah madaxtooyada jamhuuriyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay xoogga saartay sidii loo xusi lahaa madaxweynayaashii hore oo si gaar ah loogu qadarin lahaa taariikhdooda loo dhowri lahaa isla markaana waxa aad wada ogtihiin oo ka dharagsantihiin madaxweynaha jamhuuriyaddu uu gartay in xafiiskiisa oo go'aamiyay in xafiiskiisa la suro sawirka madaxweynihii hore ee Soomaaliya aabihii dimuqraadiyadda Afrika madaxweyne aadan cabdulla cismaan aadan cadde oo ilaa maanta suran taasina waa maamuus iyo qadarin oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu u sameeyay madaxweynihii hore aadan cabdulla cismaan waxa sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dadaashay sidii loo soo celin lahaa taariikhda iyo taalooyinka iyo sooyaalada ummadda Soomaaliyeed taas oo lagaga dayan karo halyeeyadii u soo halgamay xorriyadda oo dib loo dhisay taalooyinkaas sida taaladii Axmed Gurey tii Sayid Maxamed SYL iyo kacaankoodii iyo kacdoonkoodii xaawataako iyo dhammaanba taalooyinkaas sida dhagax tuur oo hadda inaguba abbaaran oo muuqaalkeedu uu noo muuqdo iyo quruxdeedii marka dhacdooyinkaas oo dhan marka la eego muhiimaddu waxa weeye Soomaalida iyo bulshada Soomaaliyeed maanta dhaqan inay higsato isla markaana ku dayato muwaadiniintaas wadaniyadu ay buuxisay dalkooda u horseeday xorriyadda kana soo shaqeeyay waxtarka wanaagsan